waa magaalo ku taala meel haar ah waxa dhaxmaro toga weyn ee loo yaqaan Faafan waa magaalo ballaaran waxayna cidhifka ku haysaa banka weyn ee ku haboon dhul beereedka sidoo kalena waxa ku hareeraysan haara ama buura yaryar waa magaalo caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga kaga aadan dhanka koonfureed waxayna u jirtaa qiyaas ahaan ilaa 410 kiiloomitir haddaba bal magaaladaasi saadaali daqsinkiyo beeriyo durdurada shidaalka ti loogu deeqiyo qabri dahare daawada waa magaalada qabri dahar ee xarunta gobolka Qoraxay waana gobolka loogu magac daray banka weyn ee caanka ee aad ku maqashaan suugaanta Soomaalida dhulka oo barwaaqo anigoo bulshaho banka jooga Qoraxay dhulka oo barwaaqo anigoo bulshaho banka jooga Qoraxay banka Qoraxay marka la joogo buundada waxa jihada bari uu ka soo noqdaa 20 kiiloomitir waxa uu jihada galbeed ka soo noqdaa isla 20 kiiloomitir sidoo kale waxa uu jihada koonfureed ka soo noqdaa 20 kiiloomitir waxa uuna jihada waqooyi ka soo noqdaa 20 kiiloomitir afarta jiho waxa uu ka soo noqdaa mid walba 20 kiiloomitir waxaanad halkaasi ka garan kartaa baaxadda dhulka banka Qoraxay uu ku fadhiyo sidoo kale banka Qoraxay waa ban weyn waxa uuna u kala baxaa laba ban oo kala ah raarane iyo candanle waxaana dhaxdooda mara toga Faafan waa ban ku fiican dhul beereedka iyo dhul daaqsimeedka aadna u ballaaran labada ban midna waxa la yiraahdaa candalle midna raarana la yiraahdaa gaar ahaan hadda bankana taaganahay raarana la yiraahdaa meeshan waxa la yiraahdaa kuuska helala la yiraahdaa waxay caam ku tahay waxyaalaha dhalaamka ah ayay caam ku tahay asagoo looga soo safran jiray meelo badan sida walwaal iyo doollo iyo wadamo inaga fog ayaa looga soo dooran jiray carraseeshiisa oo geel loo rari jiray oo geel loo qaadi jiray waxay leedahay dhul beereed iyo kheyraad aad u fara badan buu banku leeyahay aagan igu wareegsan oo dhan dhul beereed weeyaan banka Qoraxay waa ban leh taariikh dheer dhulku magaca guud ka siman yahay balse waxa uu isdheer yahay carraseesha iyo labeenta carrada ku fiican wax soo saarka iyo dhul daaqsimeedka dhulku wuxuu u qaybsan yahay laba nooc dhulku labo iyo kurus buu u qaybsan yahay dhulkan gaar ahaan Qoraxay la yiraahdo waxa weeye dhulka kuruskiisa weeyaan dhulka kuruskiisa weeye haddii aan ka warbixiyo bankan ilaa iyo kuuskan iyo maraacato iyo toga inta u dhaxeeya banka inta waxa la yiraahdaa oo la oran jiray banka raarana la yiraahdaa kheyraadka iyo masagada anagu aad iyo aad buu ugu caan baxay gaar ahaan aagan aan eega taaganahay waa dhulka aad u sii masaga badan weeye aad u sii masaga badan weeye banka Qoraxay waxa loogu bixiyay maadaama uu ahaa dhul beereed ku caan baxay wax soo saarka ma jirin haba yaraatee wax geeda oo laga hadhsado qoraxda meeshan waxaa la yidhaahaa Qoraxay waxay kula magac baxday
geedkan eega aynu meelaynu ka mara aynu la'nahay waddanku ma lahayn wuxuu ahaa geedgeed hebel la yidhaaho sida haddii ilahay ma xaglacdayowga sida loo dabaalka sida haddii ilahay mataanaha sida isku dhoonka geeda noocaas oo waddanka ka magacaaban oo la yaqaano ayuu waddanku lahaa waxay ahayd meesha arladii ilaahay meeshan arladii ilaahay meesha ugu fiican bay ahayd meelay biyo kaga fiican tahay biyaheedu dhowr nooc bay ahaayeen dhana ay xooluhu ku jeel baxaan bay lahayd kuwa saabuunta kiciyo oo haddii ilahay macaan bay lahaayeen kuwa dibir ku yaallo oo haddii ilahay dhexdhexaaday lahaayeen akabaabigan kolkaad xaggaa u baxday kolkaad xaggaa u baxda 3-4 nooc yuu u qaybsan yahay sidaa darteed dhulka waxay kaga fiican tahay waxyaalaha kala bedelan waa ban inta badan aad looga beeran jiray masagada iyo haruur yaryaraha sidoo kalena dhulka firida aad ku riddo ayaa waxaad ka goosan jirtay wax soo saar fara badan bakeeri markaad ku abuurto anigan eega idinla hadlahaya 2 koobiya bakeeri yaan beri abuuray 2 koobiya bakeerigii 25 jawaan baan ka goostay waa anigan meel waxaa weeye yacni tacabka iyo dhulbeereedka iyo haddii ilahay maayey daaqa ka soo baxaayo uu maaragtay waddamada kale aad iyo aad ogaga sarreeyo xoolaha daaqa ooga soo baxa waddanka ee aan ku naqaanay garowlaha iyo jarbada iyo baaxuurka iyo xubnacaseeyaha iyo haddii ilahay maay geedka la yidhaaho maxaan kuu sheegaa baaxuurka iyo geedka la yidhaaho baribariga riyo xidhaha wuxuu badnaa masage yaryari oo markaad ama kooba abuurto ama 2 ama 3 70 ama 80 ama 90 kintaal ka guuj taasoo u badnaa labada bamba ilaa maraacato iyo ilaa dugubley iyo ilaa cadaley aw beled ilaa qabdahare labada dogood ba saraca wiisay dhulka oo barwaaqo anigoo bulshaho banka jooga qorraxay dhulka oo barwaaqo anigoo bulshaho banka jooga qorraxay banka qorraxay marka aad joogto waxa kuu dhow ceelka caanka geeluna aadka u jecel yahay uuna ku jeel baxo waana ceelka karuudka waxa uuna ku yaalaa gagida banka qorraxay dhulka oo barwaaqo anigoo bulshaho banka jooga qorraxay dhulka oo barwaaqo anigoo bulshaho banka jooga qorraxay sidoo kale banka qorraxay waxa ku yaala daar balaayo oo iyaduna ka mid ah goobihii sayidka iyo daraawiishtiisu ay deganaayeen waa qalcado aad u cimri dheer waxaana la sheegay in lagu dhisay farsamo ay wehelinayso maskax dadka dhisayna dad fara badan bay ahaayeen balay dhagaxa way isu dhiibi jireen balay ilaa intaasoo ruux inta isdaba istaagto ayaa dhagaxa ruux soo dhiibi jiray sidaas dhagax laftiisu kabtan ku imaan jiray oo dad fara badan intuu isdaba istaago halka dhagaxu yaallo iyo ruux dhagaxa soo dhiibi jiray sidaas lagu dhisay baa la yiraahdaa daar balaayo oo ku taala bartamaha banka qorraxay ayaa waxaa lagu dhisay caano halka sidoo kalena marka sibirka la waraabinayo lagu waraabin jiray caano waana sababta keenta in dhismahani taariikhdiisu duuga tahay ilaa hadda uu dhisnaado daar cabdillah xasan dhisay oo lagu dhisay caano
laguna waraabin jiray markii la dhiso rushaynteedina waxayna uscaana ahaa caanana saliid iyo shidaal iyo waxba toona ma lahayn oo wax lagu qoyo oo kale ma jirin caanahaasa lagu qoyo baana la yidhi waa lagu aruurta kolkii biyaha cadka eega guryaha la dhisaya aynu ka rushayno biyaha ee caana lagu rushayn jiraa la yidhi goobta ay daar balaayo ku taallo waa goob masna ah oo ila barwaaqo ah waxaana bartamaha toga faafan ku yaalla meel biyo macaan oo loo yaqaano dindinta malkadana waxaa la yidhaa baarjeex waana meel neefka geela ee gala liqi jirtay daar balaayo waxay ahayd masna dhulku masnu ahaa kabtan hadda hoosteeda ay faafan inaga quman toga faafaneed waxay ahayd meel biyo macaan oo aan nin qodin oo toga dhexdiisa meel oo go'an laga cabaayay daar balaayo waxay ahayd meel sayidka iyo daraawiishtiisuba ay ku galeen dagaalo fara badan sida ka muuqata magaca daarta daartan magaceeda daar balaayo la yiraahdaa sababta ay kula baxdayna dad badan baa ku dhintay sababo kala duwan ha u dhinteen laakiin dad badan baa iyada sababteeda yaa u dhintay baa la yiraahdaa daar balaayo meeshan waxa kula baxday dib badan bay ahayd had iyo jeeraale dawlad iyo dadweyne wax ku diriray waa lagu diriri jiray sayidka dagaalo badan baa ku qabsaday الله u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan waxa uu ahaa halgamaa guumaysidiida waxa uu ahaa geesi aragti fog oo kolba cadowga ku raad jooga hilfaha u laabi jiray waxa uuna deegaanka ku lahaa saldhigyo badan oo ay ka mid tahay daar balaayo oo ku taalla bartamaha banka qorraxay sidoo kale banka qorraxay waxa aad u jecel gorayada oo aan laga waayin gagida banka qorraxay waxayna gorayadu ku nooshahay meelaha bannaanka iyo dhulka geedaha gaagaaban leh waxayna tarantaa ama ay dhashaa xilliga kaliisha ukunta ay dhashana waxay dhigataa meel bannaana oo aan ammaan ahayn ama aan laysku hallayn karin balse way adag tahay in ukunteeda loo dhowaado waxayna ka difaacataa ukunteeda duurjoogta isku dayda in ay waxyeelayso ukumaheeda gorayadu waxay ka mid tahay ugaadha guurguurta ee daaqa doonata waxaana lagu tiriyaa shimbiraha aan duulin balse baadka leh wax ma uriso balse aragtideeda ayaa aad u shaqaysa hadhka iyo habeenkuna waaba iskaga mid gorayadu waa wax ciyaar badan waxayna leeyihiin fagaaro ay ku ciyaaraan iyadoo lagu kala xariifsan yahay
ciyaarta bilowga ciyaarta aad ayay u ordaan wareeg ayayna sameeyaan kadibna baadasha ayay kala bixisaa marka ay aragto in ciyaartu ay isku dubadhacdayna waxay ka ciyaartaa lug iyo garab iyada oo intaasi kadibna baadasha aayar u kala bixinaysa si ciyaarta ay u qurxiso وبنك عنك عندنا رارنا هذا يدرس عرقتين عندنا وبنكن بل سواها كلا برسان هري بدين كل شيء توقف فناد أو يسوق مسافة لير أد أسمرة وحن بنك قرحي عنك إسلام مركزنا سوقان الصومالية ده يكون مقرشان يدو مرتب بنكن يتاريخ ديسة dalkanu balaadhana deegaan wacana bulshadu dooxa iyo buuriyo damaliyo dhir badana buuraha mataanaha ama silsilada buuraleyda ee loo yaqaan jugle iyo daris waxay ku yaalaan degmada Kudumbuur ee gobolka Quraxay waxayna magaalada Qabridahar ka xigaan jiha ahaan waqooyi waxayna u jiraan masaafo dhan 30 kiiloomitir waana dhul caana oo inta badan lagu dhaqdo xoolaha maadaama ay leeyihiin kayd reebka daaqa iyo dhir badan oo manaafacaad u leh xoolaha buuraha dhulka ku yaal way ka macbaan tahay meel ka macdan badan way taris waxa lagu bixiyay waa meesha waxa dara laga bixi jiray wixii daraada abaar ah dulli ah meeshii kayd kale lagu cariri jiray laga bixi jiray abaaraha weeyaan waa meeshii waxa daran laga cariri jiray jugle iyo daris waxaa loo yidhi jugle waa duud weyn oo baaxad weyn oo gurooyin waaweyn oo la dega leh darisna way dhuuban tahay oo si yar dhuuban bay u baxday oo goro la fuula ma leh wax hal geel uu galo ma laha waa dibir maarmaar oo wareegsan oo way dhuuban tahay duudkaasuna duud weyn oo baaxad leh oo ciddu degto oo doog iyo diraacba aan laga bixin oo marra caws loo doonto marra loo doonto doogga loo doonto oo ballaadhan oo gurooyin waaweyn oo dhul dhana weeye taariikhda ay la kala baxeen marka midna daris kula baxday midna ee kula baxay jugle waa dhuubnida iyo baaxadda ballaadhka waxa ka baxa waxana waa geed waxana waa caws cawska ka baxa dadwaaha ku muuqdo waxa la dareemo jixi midlahana waa ka baxaa jixi turin midlahana waa ka baxaa beera midlahana waa ka baxaa mililaaho urweyn oo intaa midna ahayn urweyn lilaaho oo caws fur uu ka baxaa cawska ka baxaayo waa intaa
haddaba labadan buurood ee jugle iyo daris waxaa dhexdooda mara laagta lebi jaawe oo ku taalla xaarta daris hoosteeda buurahan jugle iyo daris maadaama ay yihiin dhulkaymaleeya waxaan inta badan laga dhex waayi jirin dugaagga ku dhex nool kaymalaydan horta meesha waxay ahaan jirtay meel libax galeena labada meeloodba meel waxay ahayd wax qarsan karta oo xidh uumaal ah iyo labada meeloodba tahay libaaxaan ka bixi jirin oo ku jiri jiray libaaxaasu marka dadkii xoolo dhaqatada ahaayo taariikho uu ka sheegaa jira taariikhda uu ka sheegaa waxaa la odhan jiray libaax maalintii kolay tahay waddooyinkeeda kolkii dadku uusan qorinkaadii iyo xidhkankadii iyo sidan uusan u fara badanin waddooyinkeeda kolay tahay dadka uu ku caydhsan jiray inta labada duud u dhexaysa lama mari jirin balse waxaa inaga horreeyaa jugliya daris ma aha la odhan jiray habeen loo hidaana ma jirin geel nin fadhiisiyey buu ahaa geel daaqahaya yaa geel ka fakaday roobna wuu soo yeelyeeshay habeenna way ka noqotay waxaa lagu tirin jiray neefkii dib kaaga joogsaday kollaba inuusan noolaanayn oo bahaldil ashuna hal aad u qiimo badan buu ahayd oo ka taariikhaynhaya wuxuu yidhi war ma heblaa caawa maqan ma jaawaa maqan ma jirbaa ma jugliya darisbaa alla ilaahay oo adaa jira horta ilaahayoo adaa jiradii uu yidhi yaa cerka hillaaciba bidhaanteeda ku arkay labjaa waa la yidhahdaa hadda labada dood baa u dhexaysaa meesha buurta jugle waxay leedahay garoon taasi oo ay noo sheegeen odayaasha aaggaasi ku nool in jidkaasi uu bixiyey jarmalku iyadoona ay ka sameeyeen halkudhigyo loogu dhaanteeyo garoonka jugle meeshan waxaa la yidhaahdaa jugle meeshan anaga taagannahayna waa garoonkaa la yidhahdaa jarmalkii baa sameeyey berigii waddadan cagafyada la qurqurhayo jarmalkii baa degey waxaan ku dhaantayn jiray markaan yararkana wuxuu uga jeeday mooyaane waa markuu cagafyada noo bixiyey moogta wala jarmalkii jid noo bixi waa garoonka jugle la yidhahdaa marka jugle waa deegaan fara badan weeyaan waa deegaan fara badan buu leeyahay waa guri degmo badan wala wey afarta cimilada ciiddu ay tahay saddex baa ku kooban asaga ciidda dibirka la yidhaahdo watanaan taagannahay iyo ta ciidda guduudan lahaa ciidda cas iyo ta qarrida ee suubaanka la yidhahdo saddexdaa ciidood buu kulmiyaa cimiladiisu saasay ka koobanta daaqsintiisuna ballacyo fara badan buu leeyahay ilaa 50 ilaa 40 laab ama 50 laab ugu yaraan oo la dago geel daaqis dadka heermiyu daaqistiisa si sax loo daaw yuule gurooyin heermiyu dagana weelada jugle iyo daris waa meel aad u cimilo fiican isla markaasna xooluhu ay ka helaan daaq fiican dadkuna ay ku raaxaystaan cimilada iyo neecawda udgoon ee jugle iyo daris waana dhul barwaaqo soorana waxayna leeyihiin jugle iyo daris taariikh fog oo ilaa ka ab soo jirtay